لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. سورة الأنبياء. waxaan ku soo jirnay tafsiirkii quraanka, waxaan soo gaadhnay suuratul anbiya. sida caadada baynoo ahaan jirtay iyo dhaqanka suuradda markaan bilaabi rabno waxaan ka horreysiin jiray macluumaadka suuraddan iyo waxa dhexdeeda ku jira. suuraddan magaceedu waa suuratul anbiya. suuratul anbiya waxaa loogu bixiyey waxaa la sheegay magacyo fara badan oo ambiyada ilaahay ka mid ah, laakiin laba nooc bay suuraddu ambiyadan ilaahay uga hadashaa. ambiyada barhkood way ku dheeraataa, mararka barhkoodna qaab gaaban bay u sheegtaa. maadaama marka ambiyo fara badan lagu sheegay oo dhibaatadii ay ka soo mareen dadka loo diray iyo sabirkoodii iyo qaabkii ay u gaadhsiiyeen suuraddan lagu sheegay ayaa suuratul anbiya la yidhi. suuratul anbiya 8 qodob baan ka hormarin haynaa tafsiirkeeda. suuraddu awalan waa makiyo, waa qur-aanka kusoo degay maka intuu nebigu joogay, bal hadalkaasi waa fii qowli ljamiic weeye, ma jiro waa culimada islaamka ka mid a oo yihi suuraddani waa madani, ma jirto. dhammaanteed suuraddani waa suurad maki ah. suuraddu waxay ku jirtaa qur-aanka loo yaqaano 200-ka 100 aayadood. qur-aanka ka faraha badan aayaadkiisu ayay suuraddu ku jirtaa. su-aasha saddexaad, aayaadka suuraddu ay ka kooban tahay waa 112 aayadood. aayaadka suuraddu waa 112 aayadood. tartiibka qur-aanka misxafka qaabkay ugu jirta suuraddu waa suuradda 21aad ee qur-aanka. suuraddu waxay soo degtay bacda suurati ibraahim. suuratu ibraahim markay soo degtay suuraddii ku xigtay ee qur-aanka suuratul anbiya ayay ahayd. suuraddu waxay ku bilaabataa ficil maadi ah, wax tegay iqtaraba linnaasi xisaabuhum. suuraddu waa juska 17aad qur-aanka, juska 17aad ayay suuraddu ku jirtaa. xisbigana waa 33, xagga rubaca waa 1, 2, 3 ilaa 4 bay suuraddani ay ku jirtaa. intaasi 7 qodob waxay ahayd suuraddan. waxaa jira marka suuraddu maadaama aynu nidhi waa makiyo, waa maxay madmuunu suura? suuraddani waxa ay ka hadasho ee asalkaba ay xambaarsan tahay suuraddan tadeetaay waa maxay? suuraddu kow waxay ku bilaabatay inay ka sheekayso dadku inay halmaan iyo is-ilowsho ay aakhire kaga sugan yihiin, ilaahayna ay beeniyeen, xisaabta ay beeniyeen, ciqaabta ay beeniyeen, qiyaamaha ee suuraddu isla markaba ay ku bilaabataa. dadka waxay suuraddani caddaysay inay iska ciyaarayaan qiyaamahaba ay moog yihiin laga bilaabo iqtaraba linnaasi xisaabuhum wahum fii gaflatin mucriduun. aayadda koobaad ilaa 15 aayadood baa qadiyadaa wadi doona. famaa zaala tilka dacwaahum xataa jacalnaahum xasiidan khaamidiin. aayadda koobaad ilaa 15 aayadoode hore waxay suuraddani ay ka hadlayso waa qadiyadaas. qadiyadda labaad ee madmuunu suura ah, suuraddani waxay mar labaad ay u gudubtaa adilada iyo baraahiinta iyo xujajka cadcad ee ku tusinaya ilaahay waxdaaniyadiisa subxaana wa tacaala. suuraddani waxay ka hadashaa suurtagal inaynan ahayn ilaah inuu tacadudi karo, inay ilaahyaal badan ay jiraan oy dhici karaan, suurtagal inaynan noqon karin. laga bilaabo aayadda 16aad wamaa khalaqna asamaa waalarda wamaa baynahumaa laacibiin ilaa laga gaadho aayadda 24aad bal akharuhum laa yaclamuuna alxaqa fahum mucriduun.
ayay suuraddu mar labaad ay ka hadashaa. mar saddexaad suuraddu waxay sheegtaa rusushii ilaahay subxaanahu wa tacaala dacwadoodii iyo qaabkay ugu yeedhayeen dhammaantood tawxiidka allah subxaanahu wa tacaala iyo baqiyada macnaha adilada ku tusinaysa ilaahay qudradiisa iyo awoodiisa iyo allah inuu keligii yahay. waxayna daliil suuraddu usoo qaadan doontaa kownkan cajiibka ah ee ilaahay uu abuuray subxaanahu wa tacaala ee la yaab kale laga bilaabo aayadda 25aad wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi anahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun laga gaadho ilaa 50 aayadood 25 aayadood ayaa qadiyaddaa ka hadlaya. qodobka afraad suuradan tadeeta ay markay sheegtay dalaa'ilka iyo waxdaaniyada allah subxaanahu wa tacaala waxay ku xujisiisaa nabinimada iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu diray rasuulka qisas fara badan oo ambiyada ilaahay ah iyo wixii gaadhay iyo dhibaatadii loo geystay iyo sidii loo xanuujiyey iyo sidii loo beeniyey si nebi maxamed ay ugu noqoto tasliya iyo tacsiyo oo rasuulku ugu daydo oo nabigu markaa u fududaato inuu xambaaro dhibaatada soo gaadhaysa ee ummadiisa ka soo gaadhaysa laga bilaabo aayadda 51 walaqad aataynaa ibraahiima rushdahu min qablu wa kunna bihi caalimiin ilaa laga gaadho aayadda 82 wa min ashayaatiini man yaguusuuna lahu wayacmaluuna camalan duuna dalika wa kunna lahum xaafidiin. marka shanaad suuraddu waxay sheegi doontaa dhibaatooyin ambiyada ilaahay qaar kamida gaarho soo gaadhay oo ah dhibaatooyin xanuun kulul sida nabiyullaahi yuunus oo kale xanuun kulul oo soo gaadhay, sida nabiyullaahi zakariya oo kale dhibaato soo gaadhay, sida nabiyullaahi ciise oo kale dhibaato soo gaadhay. saddexdaa nabi ayay suuraddu haddana mar labaad ay u gudbi doontaa isagoo weli rasuulka loogu tacsiyeynayo sala allahu alayh wasalam si uu ugaga dayda xagga sabirka oo u xambaaro xanuunka uu leeyahay sabirku una dhadhamiyo. laga bilaabo wa ayuba id naadaa rabbahu anii masaniya duru wa anta arxamu raaximiin aayadda 83 ilaa suuradda aayadda ugu dambaysa ee ku dhammaanayso qaala rabbi xkum bilxaqi warabbuna araxmaan almustacaan calaa maa tasifuun. saasayna suuraddu ku dhammaan doontaa. allah hadduu idhahda subxana wa tacala madmuuna suurana intaasaan kaga gudbaynaa. bismi illahi araxmaan araxiim. iqtaraba waxaa u dhowaaday linnaasi dadka waxaa dhowaaday xisaabuhum xisaabtoodii baa dhowaatay, waqtigii la xisaabi lahaa waa dhowaaday. walxaal buu dhowaaday hum iyagu fii gaflatin halmaan ay ku sugan yihiin mucriduuna xaal ayihiin kuwa ka jeeda xaqa. maa yaatiihim ooma yimaado min dikrin wax xusi uma yimaado, xusuusin waa qur'aanka ah, min rabbihim rabbigood xaggiisa ugama yimaado ama xuskaasoo min rabbihim rabbigii xaggiisa ka ahaaday ila kaasoo muxdathin la soo dariyey oo cusub ila stamacuuhu way dhegaysanhayaan. walxaal oo hum iyagu yalcabuuna ay ciyaarayaan bay dhegaysanhayaan. laahiyatan xaalay tahay tii mashquulsan quluubuhum quluubtoodu waa saruu waxay sirayseen annajwa shirki aladiina kuwii dalamuu dulmiyey oo waxay idhaahdeen hal haadaa maa haadaakani ma ahaanin ma wax kaluu yahay ilaa basharun bashar mooye basharka oo midlukum idinkoo kalea ee afataatuuna asixra war ma sixir baad u tegaysaan walxaal oo antum idinku tubsiruuna aada aragtaan. suuraddu waxaynu nihi bilowga kow waxay ku bilaabataa 15 aayadoodoo hore hal qadiyad ah, qiyaamaha iyo dadku inay halmaansan yihiin. wuxuu rabbi subxaanahu wa tacaala uu leeyahay iqtaraba linnaasi xisaabuhum waxaa dhowaaday dadka waqtigii la xisaabi lahaa baa dhowaatay buu rabbi subxaana wa tacaala uu leeyahay. waxaa dhowaaday waqtigii dadka la xisaabi lahaa ayaa dhowaatay buu rabbi subxaanahu wa tacaala uu leeyahay. waqtigii la xisaabi lahaa ayaa dhowaatay bimacnaa waxaa jira wax la yidhaahda kullu aatin fa huwa qariib. qiyaamuhu waa shay dhici doona, waa kow. qiyaamuhu hadduu dhacana qof walba wuxuu la kulmi doonaa wixii uu kasbaday ee camal lahaa ee u sameeyey. lawaasin baa jirta markays daba socota. qof walba oo nool oo basharo bilow aadana laabudda waa inuu geeriyoodo, waa kow. mar labaadna waa in lasoo bixiyo, waa labo. waa arrin iska dhalanayso isdaba socota. mar saddexaadna waa in la xisaabo wixii uu sameeyey hadduu khayr ahaa
iyo hadduu shar ahaa. walidaalika saa darteed baa rabbi subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi waxaa dhowaaday waktigii dadka la xisaabi lahaa ayaa dhowaaday buu rabbi subxaanahu wa tacaala uu leeyahay. laakiin dadku qaflay bay kaga sugan yihiin, halmaan bay kaga sugan yihiin. dadku in ay dhowaatay waktigii la xisaabi lahaa way halmaansan yihiin buu rabbi subxaanahu wa tacaala uu leeyahay. waa la ilowsan yahay, waa la iska socdaa, xisaabi goormay dhacaysaa ma jirto. walidaalika saa darteed inta badan dadku allahuma ilaa qofu alla u naxariistay mooye wayba halmaansan yihiinba in la xisaabahayo. bimacnaa qofku markuu dhinto qiyaamihiisi wuu dhacay, qofkuna laabudda waa kii dhinta. saa darteed baa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi way dhowaatay qofka markii la xisaabi lahaa. xisaabtaa tafsiirka waxaan maray, xisaabtaasi waa aakhiro. cabdullahi bni cabaas laakiin wuxuu qabaa xisaabtaasi waa adduun oo mushrikiinta weeye waxa lala hadlayo. quraysh markii lala xisaabtami lahaa ee adduunka lagu cadaabi lahaabaa dhow oo waa yowmu beder markaas, oo adduunyada markii lagu halaagi lahaa ayaa dhow. walidaalika inagu waxaan u dooranay tafsiirka xisaabta dhabta ah waa xisaabta aakhiro. adduunyada la iskuma xisaabo, adduunyada qofka fiicani isagaa isxisaaba. laakiin allah subxaanahu wa tacaala addoommadu markay dhintaan halkaasuu rabbi subxaanahu wa tacaala uu ku xisaabaa oo ayna dhaqaaqaynin ilaa 4 su-aalood la weydiiyo, 4taas su-aaloodna ay ka jawaabaan. ilahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala maa yaأtiihim min dikri min rabbi muxdathin ila istamacuuhu wahum yalcabuun. alla wuxuu leeyahay uma yimaado wax dikri ah oo xus ah. dikrigaasi 3 buu ixtimaalaa. dikrigaasi waa qur'aanka, waa kow, waa tafsiirka aan mari doonno hadduu alla yidhaahdo. 2 waa nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam laftiisa rasuulka. 3 rasuulka meehe waa waxa uu nebigu sheegahayo ee waxyiga labaad ee sunnada hadalka nabiga. dikrigu waa kaa 3daasa horta ku jirta. salafku 3daa ayay ku tafsiiriyeen. tafsiirkaan marayno waa qur'aanka, dikrigu waa qur'aanka. rabbi subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay oo ma yimaado wax oo isxusuusin ah. qur'aanku waa xusuusin, ma yimaado xagga rabbigoodna oogama yimaado. xuskaa oo cusub oo ma yimaado buu rabbi subxaanahu wa tacaala uu leeyahay, oo isxusuusintiisu ay cusub tahay ilaa way dhegaysanhayaan iyaga oo ciyaaraya buu rabbi subxaanahu wa tacaala uu leeyahay. iyagoo ciyaarahaya ayay dhegaysanhayaan buu rabbi subxaanahu wa tacaala uu leeyahay. qur'aanka waxay firaq u daliishadeen aayadan tadeeta qur'aanku makhluuq inuu yahay. daliil waxa u abay yidhaahdeen ilaahay baa wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala min dikri min rabbihim muxdathin, la soo dariyey. bimacnaa waa shay la soo dariyey oo waa makhluuq bay yidhaahdeen. hadalkaasina waa hadal baatil ahoo muxdathka waxa laga wadaa bimacnaa qur'aanku waa kalaamullahi, waa qadiim. laakiin qur'aanka allah subxaanahu wa tacaala wuxuu u soo dhiibay jibriil. nebi moxamed buu marka u keenahayaa. marba aayaad baa soo degaya, marba suurad baa soo degaysa. dhinaca markii la fiiriya buu qur'aanku cusub yahay ee ma aha inuu yahay makhluuq, waa kalaamullahi. qadiyadaasna in badan baan kitaabadii caqiidadahayd aan kaga soo hadalnay. ilaahay wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala ilaa hadalkaa way dhegaysanhayaan, laakiin ha dhegaysteenne waxay dhegaysanayaan iyagoo ciyaaraya rabbi subxaanahu wa tacaala uu leeyahay. wahum yalcabuun. dhegaysigu waa 2 asalkaba. shayga markaad adigu aad dhegaysanaysa dhegaysigaasi waa 2. shay qalbigaaga aad ka dhegaysanayso ood qalbigaaga aad ka doonayso, iyo shay dhegta aad ka dhegaysanaysa keligeed laakiin qalbiga iyo gudaha aan ku jirin. midi xukun buu leeyahay sharcan, midna xukun ma laha. dhegta waxa aad ka maqasho oon hoos u duleelin sharcan xukun ma leh, liannahu ilaahay ma aqbala subxaanahu wa tacaala waxaan niyo lahayn. laakiin ka muctabarka ah ee la fiiriyo ee xaqiiqada insaanka caqliga uu alla u siiyey ee qur'aanka laleeyahay falaa tacqiluun, waa shayga markaad dhegaysato oo aad si niyada aad u dhegaysato allah marka kaasuu ka anfiyey subxaanahu wa tacaala. gaalada wuxuu alla uu ka anfiyey qur'aanka way dhegaysanayaan, dhegaysiga lagama anfiyin. laakiin dhegaysi sax ah oo dhaba inay dhegaystaan buu alla ka anfiyey oo rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wahum yalcabuun. iyagoo ciyaaraya bay qur-aanka dhegaysanayaan. walidaalika saa darteed waxaynu suuratu fusilat ku gaadhaynaa
horeyna aan qur-aanka barhkii ugu soo maray markay qur-aanka dhegaysanayaan maraaxil fara badan bay ahaayeen. mar way dhegaysan jireen, marna dhagahay faraha gelin jireen, marna way qaylqayliyi jireen, intabana qur-aanka way maqli jireen. intaasoo dhan iyagoo sameeye usluub ah buu intuu ka dusay qur-aanku buu quluubtooda iyo gudahooda u dhaadhacay qur-aanku. walidaalika saa darteed ayaa waxay u diidi jireen qur-aanka inay dhegaystaan. hadday dhegaystaan macnihiisay fahmahayaan, hadday fahmaanna way hogaansamayaan. dagaalna ay marka la dagaalamayaan ayayna qur-aanka si dhab ah ayna u dhegaysanaynin. ilaahay wuxuu ku eedeeyey gaalada qur-aanka inayna si saxa u dhegaysanin. waxaa jirta wax la yidhaahdo alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab. gaalada soo alla saa kuma eedaynin subxaana wa tacaala. ma soo gelayaan dadka islaamka? haa, way soo gelayaan, bal waa min baabi awlaa. waxay u soo gelayaan kalaamullahi markaad maqasho. allah wuxu uhi waidaa quriya alqur'aanu fastamicuu lahu wa ansituu, dhegaysta oo aamusa bu rabbi subxaana wa tacaala uu yidhi. qur-aanka markii la aqrinhayo waxaa waajib ku ah dadka muslimiinta inay dhegaystaan iyagoon ciyaaraynin, iyagoon sheekaysanaynin, iyagoon qaylqayliyaynin. waxaa khalad ah oo aayadani ay diidaysaa, ilaan qur-aanku waa nolosha wixii lagu dabaqi lahaa. waxay aayadani diidaysaa gaadhiga qofka wada ee qur-aanka intuu iska gashado maantao dhan haddana iska ciyaarahaya, ee taleefanada iskaga hadlahaya, ee iska dhegaysanhaya. waxay aayadani qabanaysaa dukaamada kuwala iyo suuqaqa intay qur-aanka daartaan maantao dhan haddana caytamahaya, ee ribada iyo xaaraanta iyo khayaanada wax ku kala gadanaya, ayay aayadani ay qabanaysaa. ayaddu waxay qabanaysaa islaamaha guriga markay xaaqanhayaan cajal intay ku ridaan oy dhegaystaan, haddana maantao dhan hawshooda iska wata en qur-aankan dhegaysanaynin ee taleefonka geesta kaga hadlaya, ayay aayadani qabanaysaa. kulligoodna way soo gelahayaan. saa darteed baa ilaahay wuxu uhi subxaana wa tacaala qur-aanka way dhegaysanayaan laahiyatan quluubuhum, quluubtoodu iyagoo ay mashquulsan tahay ayay qur-aanka dhegaysanayaan, ayuu rabbi subxaana wa tacaala uu leeyahay wahum yalcabuuna. laahiyatan quluubuhumna waa la daba dhigay, way ciyaarayaan oo jidhkii bay ka ciyaarahayaan. laahiyatan quluubuhum, quluubtoodiina way mashquulsan tahay ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala uu leeyahay. waajib waxaa ku ah qofka muslimka ah ee rumaynaya allah subxaanahu wa tacaala qur-aanka ilaahay markuu maqlo inuu dhegaysto ayaa waajib ku abu rabbi subxaanahu wa tacaala. in badan qur-aanka uu ku soo celceliyey. ilahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala laahiyatan xaalay mashquulsan tahay quluubuhum, quluubtoodu ayay dhegaysanayaan. wa asaruu waxay siraysteen annajwa, shir hoosaadkii. najwaha asalka najwiga waxaa la yidhaahdaa meesha sare fi luqati alcarab. najwigu waa ashay lmurtafic, waa meesha kor u yartaagana ishu ay ku dhacdo. waxaa loo isticmaalay dadka intay dadka geesta isagala baxaan ay meel istaagaan afka isa saarsaara ee hoos wax isugu sheega, kaasaa najwo la yidhaahdaa. kaas waa shirka qarsoodiga ah, shirka gaarka ah ayaa najwi la. waxaa loogu bixiyey kooxdadii markay dhinac isu saaraan meel istaagaan waa la arkahayaa, dadka way ka dhex baxsan yihiin. waa marka wax la qarsanhaya marka najwigaasi ee hoos wax la isugu sheegayo. oo rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay gaaladii hoos bay u shireen. waxa laga shirahaya waa maxay? go-aan in laga soo saaro nebi moxamed iyo qur-aanka, qaabkii looga hortegi lahaa waxyigan iyo qaabkii loo hor istaagi lahaa ayaa laga shirahayaa. hal aladiina kuwii dalamuu dulmi, rabbi subxana wa tacaala u leeyahy dulmigu waa laba oo marna waa dulmi asqar ah, waa macsiyada, marna waa dulmi akbar ah, waa gaalnimada. labadaba marka dulmiga waa loo isticmaalaa, labada dulmiga loo isticmaalaa. waxay yidhaahdeen halkaa waxaa ku jira qaa'iliina, way shireen qaa'iliina xaalay leeyihiin hal haada, maa haadaakani ma ahaanin ilaa basharun qof mooye milukum idinkoo kale ah. wax kale oo maxamed uu yahay ma jiro, waxba idin lama dheero, waa bashar, waa idinkoo kale. hooyaa dhashay, hooyaa isagana dhashay. waa nin caqli leh, idinkuna caqli baad leedihiin. waa nin hadli yaqaan, idina waad hadli taqaanaan. way soo socotaa qur-aanka inoo sheegi doona hadaladii ay dheheen. waxbuu cunaya, way soo socotaa, waxba ka hortegi mayno. waa bashar idinka oo idin lamida, waxba idinma dheero. saad u dhalateen buu u dhashay,
saad wuxu dhashaan buu u dhalaa saad u dhimanaysaan buu u dhimanaya maxay tahay haddana nabi baan ahay waxbaan idin dheerahay suurtagal ma abay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen afataatuuna warma waxaad u tegaysaan asixra sixir miyaad u tegaysaan ood dhegaysanaysaan walxaalo antum idinku tubsiruun aad aragtaan idinkoo arka inuu ninkani saaxir yahay oo waxa uu idiin sheegaya uu sixir yahay warma sixirka ayaad dhegaysanhaysaan oo maxaa idinku dhacay bay yidhahdeen bimacnaa idinkoo fayow oo aan waalayn oo aan la idin sixirin oo aan waxba idinku dhicin miyaydun dhegaysanaysaan ayay yidhaahdeen qur-aanka bimacnaa waxay ka soo qaadeen qur-aanku inuu sixir yahay nebiguna inuu saaxir yahay ayay ka soo qaadeen oo waxay yidhaahdeen qur-aankan sixirka iyo nabigan saaxirka war midna ha dhegaysanine iskaga taga soo saa lama odhanin qur-aanka yaa nabiga usoo dhiibay allah subxaana wa tacaala hadalkan yaa maqlaya allah subxana wa tacala xaqiiqatu qowl yaa og allah niyada waxa ku jira xaqiiqadiisa yaa og allah rasuulkana yaa usoo dhiibay amaanadan allah yaa loo celinhayaa marka allah subxana wa tacala dacwadu marka allah bay u noqotay qaala wuxuu yihi marka rabbii rabbigaybaa yaclamu og alqawla hadalka fi samaa cirka dhexdiisa lagu dhaho iyo walardi dhulka dhexdiisaba allah wuxuu isku sii og yahay samada hadalka lagu dhaho iyo dhulka wa huwa ilaahay asamiicu ka maqla wey saamicu laswaat wax kasta ilahay waa maqlaa alcaliimu wax walba ka og weye caliimun bikuli shayin cilman taaman buu rabbi subxaana wa tacala u og yahay bal soo maynan odhanin waa saaxir rasuulka beenta maxaa lagu gartaa iska hor imaadka bal bay yidhaahdeen qaaluu waxay yidhaahdeen hadalku saa meehe adgaathu axlaamin dheelalow isku dardarmaday weeye waa dheelalow isku dardarmaday bal iftaraahu moxamed baa been abuurtay bay yidhaahdeen bal huwa shaacirun waa gobyaa falyatinaa ha noola yimaado biaayatin aayad ha noola yimaado kamaa ursila sidii loo diray kamaa ursila alaaya aayadda sidii loola diray alwaluuna kuwii hore qaala tacaala alla wuxuu ihi maa aamanad ma rumaynin qablahum iyagoo hortood min qaryatin wax qaryo halagnaaha aan halaagnay ee afahum iyaga miyaa yu'minuuna rumaynhaya mucjizada miyaga rumaynhaya rabbi subxaana wa tacaala waxa uu ka hadlay nebi moxamed oo qadiyadii ilaahay u celiyey iyagii la hadlaya oo u bandhigaya oo aflagaadadan ay qur-aanka caayayaan isaga caayayaan u sheegaya inuu jiro allah soo diray oon waxba laga qarin karin wuxuu yidhi nebigu rabbigaybaa wuxuu og yahay samada wixii lagu dhaho iyo dhulka wixii lagu dhahaba labadaba waa og yahay laa yakfaa calayhi shayun mima yuqaalu fi samaai walaa fi lardi way hadalku wixii samada lagu dhahdo malaa'igta iyo makhluuqa samada ku sugan wixii lagu dhaho waxba ilahay kama qarsoono dhulka wixii lagu dhahana waxba ilahay kama qarsoono caalamka waaweyn waa labo caalamka inaga sareeya iyo caalamka inaga hooseeya labadaa caalam inta u dhaxaysan labadaa un bay xukunkooda leeyihiin saa darteed ayaa wuxuu leeyahay nebigu war ilaahay baa wuxuu og yahay wixii qowl ee lagu yidhaahdo ilahay waa og yahay oo wixii ficile lagu sameeyey ilahay ma oga miyaa laga qaadanhayaa maya laakiin waxaa hadda la isku haystay ma qowl bu aha ma ficil buu ahaa qowl buu ahaa leanna waxay yidhaahdeen afataatuuna sixra wa antum tubsiruun waa nin idinkoo kale ah ma sixir baad u tegaysaan idinka oo arka qur-aankii maxaa lagu tilmaamay sixir bay ku tilmaameen ilahay baa marka og buu ihi ilaahayna waa asamiicu alcaliim waa allaha wax walba maqla rabbi subxaanahu wa tacaala waa ilaaha wax walba og waxba ilahay aan ka qarsoonayn subxana wa tacaala cilmiga ilahay laa nihaayata lahu ashyaada oo dhan rabbi subxaana wa tacaala waa og yahay oo waxba kama qarsoono hadalka aydun la dhuumateen ee aydun gaarka u shirteen eed kusoo go-aansateen qur-aanku inuu sixir yahay haddaad moodaysaan inaad alla ka qarsoomaysaan ilaahay kama qarsoomaysaan bal waxay yidhaahdeen mayna ku daysanin sidii hore adgaathu axlaamin dheelalo isku dardarmaday weeye waa riyo isku dardarmatay oo wax isku dardarmaday weeye bimacnaa waxaa hadalkan laga wadaa waa kan suuratu yuusuf ku soo maray adgaathu axlaamin dheelalowga qofku markuu dheelalaabo soo la garan maayo dheelalow dheh hawaawi dheh hurdada markaad intaad aada hurdooto aada riyooto waxyaabaha suurtagala in aad ku riyooto aroortii aad soo toosto adigoo waxyaabo badan wata laakiin aadan isku hagaajin karin qaabkii iyo wixii xalay aad aragtay oo dhan kaasa maxaa la yidhahdaa dheelalow
hurdadu hadday si saxa intaad u riyooto aad hal wax aragto waa manaam caadi ah, laakiin adghaathu axlaamin waa markaad buur adoo ka dhacay marka hurdadu intay kaa xumaato ay marba wax kugu soo dhaco wixii aad isku hagaajin kari weydo. saa darteed ba waxay yidhahdeen qur-aanku waa adghaathu axlaamin. waxay saa u leeyihiin qur-aanku mar wuxuu ka hadlayaa axkaam, marna wuxuu ka hadlayaa qisas, marna wuxuu ka hadlayaa tawxiid, marna wuxuu ka hadlayaa dalaa'il, mar wuxuu ka hadlayaa mucaamalo. qur-aankiibaa waxyaabo badan oo kala bedelan buu ka hadlayaa. waxay ka soo qaadeen marka nabigani intuu habeenkii markuu seexdo riyoodo, aroortii markuu wixii isku hagaaji yidhahdo inay ka kala dhunto, marba marka intuu ka xusuusto uu dhinac ka soo qaato ayay ka soo qaateen halkaa. kaasaa waxay idhahdeen qur-aankan uu maxamed watay waa qur-aan uu leeyahay waa wax la isku dardaray, waa group. qolo kale waxay idhahdeen bal iftaraahu, maya waa been abuurtay, waa been abuurad bay idhahdeen. qur-aanku ma aha wax lagu riyooday waa been abuurad bay idhahdeen. bimacnaa intuu isagu samaysto oo isagu jeebkiisa ka samaysto ayuu ilaahay dusha u saaraayo ilaahay baa ii soo dhiibay ule wax ka jiraana ma jiro ayay yidhaahdeen. bale bay idhahdeen huwa isagu maxamed qur-aanka yaa leh, maxamed soomaa waxa ku hadlaya huwa shaacirun bay idhahdeen, waa gobyaa. haddii la yidhi nebigu waa gobyaa, qur-aankiina muxuu noqonayaa waa shicirkii. bimacnaa muxamed waa shaacir bay yidhaahdeen, waa shaacir. imse hadal bay yidhahdeen, waxay yidhahdeen kow adghaathu axlaamin, haddana waxay yidhahdeen maya adghaathu axlaamin maaha. adghaathu axlaamin waxaa lagu yaqaanaa shayga riyada ama dheelalowga ah haddii maanta lagu warsado oo berri lagugu celiyo mar dambe iskuma hagaajin kartid. laakiin maxamed taniya maalintii ugu horreysay hal shay buu ku celeli, wax iskhilaafa male, waa isku mid. marka hore markay yidhahdeen waxani waa dheelalow, ay fikiraan ay arkaan inuusan qur-aanku iska hor imaanaynin, bay waxay odhanayaan maya adghaathu axlaamin ma ah ee waa maxay bal iftaraah, waa been abuurasha bay yidhahdeen. waa wax intuu maskaxdiisa ku soo maaxdo ayuu meel ku xifdinayaa, kadib uu aqrinayaa, kadib uu ilaahay dusha u saaraya, uu leeyahay ilahay baa waxaan ii soo dhiibay. maya saasna ma aha, liannahu hadduu been abuurtay beentaaba lagu yaqaanaa isburinta iska horimaadka, mana leh ilowga iyo wax kala tagtaga beentaa lagu yaqaana. markaad doonaysa inaad qofka beentii runtii soo saarto, su-aal baa la weydiy waa lagu celiya hadduu sidii un hadalkii ka kici waayo, hadalkaasi waa hadal salla wey. laakiin hadduu intuu maanta wax kuu sheego berri wax kale kuu sheego, maalinta ku xigtana wax kale kuu sheego, warkaa waxba kama jiro wey. walidaalika waxay yidhahdeen haddana maya saas ma aha bale bay yidhahdeen huwa shaacirun bay yidhahdeen, qur-aanku waa shaacir bay, maxamed waa shaacir, qur-aankuna waa shicir. bimacnaa lafdiga qur-aanka iyo alfaadiisa iyo macaankiisa iyo qaabka uu isu haysto ayaa waxay yidhaahdeen waa sida gobayga oo kaleeto, waa sida gobayga oo kale. hadalkaa waxay uleeyihiin waktigoodii qur-aankan alle uu soo dejiyey waxa la isugu faani jiray waxay fasaaxada gobayga, anaa kaa fasiixsan, anaa kaa hadal qurux badan, hadalkayga hadalkaaga ka wanaag, saasay wax la isugu faani jiray. qur-aanka marka wixii oo dhan isku fuuqsaday oo dusha ka qabtay, xuruuftiisii muqatacaadka ahna way fahmi waayeen, macnihiisi way garan waayeen. saa darteed ba waxay dhahay maya qur-aanku waa shicir bay yidhahdeen, maxamedna waa shaacirkii. waxaan oo dhan aqbali mayne, aayaadkan la aqrinhayo ha naga daayo. falyatinaa biaayatin kamaa ursila alwaluun. waxay yidhahdeen inagu ambiyadii ilaahay ee hore ee la diray xujaj cad oo indhuhu ay arkaan baan ku arki jirnay. waxaan la aqrinhayo muxuu yahay bay yidhahdeen, bimacnaa muuse ul baa loo soo dhiibay, indhaha lagu arkaa, gacantiisaa ifaysay, badda alla u kala jeexay. nabiyullaahi ciise oo kaleeto waxa nool waxa dhintay ayuu soo noolayn jiray, baraska ka qaba ayuu bogsiin jiray, ka indhahala iyo afkala buu u furi jiray. nabiyullaahi saalax oo kaleeto hal baa ilaahay siiyey subxaana wa tacaala. aayaad noocaasoo kaleeto hoo la arko baan kaaga baahanay. bimacnaa waa waxay weligii nabiga ku eedeyn jireenoo maad macnaha webiyaal beera ama nasiisid iyo maal dhulka la kala durkiya iyo ma marag uu kula socdi, hawshaa weeye hawsha ay dabada ay hayaan daba socdaan. sida ambiyadii hore ee loo diri jiray waxay yidhaahdeen maa loo diro waxbuu aqrinayaa, bimacnaa hadalkan waxay ka wadaan annagu aayaadka aanu rabna mu noo keeno, annagu aayaadkan isagaa la imaanhaya maanaa weydiisanin. laakiin annagu aayaadka aan rabna wax la cuno iyo weli indhahoodu adduunya waxaanayn ma qabtaan. bimacnaa webiyaal iyo beeri iyo waxaanu anagu rabno mu noo keena bay yidhahdeen. laakiin qur-aan buu aqrinaya kadibna wuxuu leeyahay waa ilaahay hadalkiisii subxaanahu wa tacaala.
سادرتيد بربي وحده سبحانه وتعالى إسقى أو غيريا آيات والبحدي الله شيء لكن إلهي أوسن إيمان لدمعين أو أوسن أقدرين والقدرين إن الروميين سيدي إن الروميين سيدي كوي كورسي أي وحده ما آمنت قبلها من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون إلهي وحده سبحانه وتعالى بجرت قرية يجا كورسي أو أنو هلاكنا وحال لجوا حكمنا هلاكها أنو حكمني أو نقدرني إلينا الروميين هاي من أو هلاكنا أولي جد الروميسي مجرت أبو رب سبحانه وتعالى أولي أم يجا الروميين هاي كوا إليهين ما آيات كود النلاسيو نبي موسى ميال الرومي نبي عيسى ميال الرومي نبي صالح سو كل قول ما كفرين سو كل إلهي قومان كودي موسى الروجين سيدي با يجنا اللوج لهايو آيات والبهد دي لولي مادو آيات كاوي بين الهايين سيدا بان اللوج لها أي رب سبحانه وتعالى أنفال وكاكوسا مره ولو علم الله فيهم خير لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون وكو رب سبحانه وتعالى إساقوا له ريئا أسوا مري طيب وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما أرسلنا ما ناندرين قبلك أذيك هرتا ما ناندرين محمدو إلا رجالا رقمويه جنس الرجل باندرنا رقاسو نوحي أن أوحيون هنا إليهم يا أما قراك لا يوحى إليهم لو وحيون هيو فاسألوا واحد ويديسان أهل الذكر يكون صاحبك إن كنتم هديدون تيني لا تعلمون وحكوان أغين وحبا هديدان قرنهين وما جعلناه ما ننكيل أنبياء إلهي جسدا جسد أو لا يأكلون طعام عنتدان عنين وما كانوا منا أيننا هين أنبياء الذين جري خالدين كوارهيا ثم انتهى بدأ صدقناهم وحان الرميني الوعد يبوهي فأنجيناهم ونبدبادنا يجي أنبياء ومن نشاء قف كان دونه ومؤمنين تي وأهلكنا وحان نهلكني المسرفين كوي حد قدبي لقد حقيقة أنزلنا وحان سود جني إليكم إذنك وحان إذنكو سود جني كتاب كاسو فيه دحديثة ذكركم شرفتي من يكون سوغانتهاي وهذا قبستان فلا تعقلون عقل ميدا الله برب سبحانه وتعالى أوليه إلهي وحليه وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أيضا الله وحكو قري يا الله ديرا هورتا أصل كبا لما قولوا من الرسول كما ديكو ملك انت اللي صادره ضدك وحجارسي لما دو لكن ملك انت اللي صادره با النبي أرلada ku sugan la yiraahdaa waxyiga isaga gaarsi laakiin malag lagu ma daydo waa kow ma dhici karto taasi waxa kale oo dhici karin qof dumar ah intii la soo diro oo dhulka loo soo diro in la yiraahdo dadka adigu wax gaarsi taana suurtagal ma sababtu waa maxay dumarka waxa la amray guriga inay fadhido nabigana maxaa la amray balligh ma unzila ilayka isma keeni karaan marka suurtagal ma aha saadarteed baa rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay war kuwan kaleeta leh ilaa waxay qirayaan inay hayaan cilmi anbiya ilaahay oo la diri jiray inay jirto rasuulkani miyuu khilaafsay anbiyadii ka hor jawaabtu waa maya wuxuu rabbi subxaanahu wa tacaala uu leeyahay muxamadow adiga hortaa maanaan dirin rag waxaan ka ahayn ilaa rijaalan rag baan diray rabbi subxaanahu wa tacaala uu leeyahay adiga hortaa lama dirin wax aan bashar ahayn oo bilow aadan ahayn lama dirin jawaab waxay u tahay hal hada illa basharun mithlukum wa bashar idinkoo kale taabay yiraahdeen basharkay ku ceebayeen sooma saadarteed baa rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay hortaa weligana waxaan rag ahayn maanaan dirin laabudda waxa la diraya waa inuu mathal leeyahay waa inuu wax ka soo horjeedo الرجل maxaa ka soo horjeeda imra'a laakiin marag hadii la yiraahdo maxaa ka soo horjeeda wax ka soo horjeeda ma jiro waa nooc gaar ah saadarteed baa waxa loogu talagalay rasuulka la dirayo in wax kasta lagaga daydo hada waxaan mathal balahayn ka soo horjeeda si loogu dayanaya suurtagal ma rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay rag horta waxaan ahayn maanaan dirin bu rabbi subxaanahu wa tacaala uu leeyahay kow waliba nuuxi ilayhim war waxyoonayna laabudda rasuulka la dirayo waa in loo waxyoodo wax maqan buu rasuulkani dadka uga waramahaya wax maqan maxaa lagu ogaan karaa oo kaliya aan min tariiq alwahyi baa lagu ogaan karaa laba waan waxyoonayna ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala hadaba fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ilaahay wuxuu leeyahay warbal idinku hadaydan arrinka waxba ogeyn
وعدي لديري أيضا أغين وأيضا لديهن أميين بانهاي وأيضا وحبا أغرين أقونين وحبا أيضا قري أقونين بل أمدها إذن لدى قري كتاب كورتين لسي التوراة إيا إنجيل إيو كوي إذن كوريي أنبيادي إلهي الرميي وربل ويدية إياقا إذن كورما هيا بل انت هذا وريساتان غير بني إسرائيل بل انت إذن توراة إنجيل بي وريساتان وحي اللي ديري جري من ملائك بيهايد مثل بشر بي رق بيهايين محمد مركب محوك يدوان يهي وحبك بدونه بل ويدية أي رب سبحانه وتعالى أوليه لكن أيضا إله سبحانه وتعالى قول ذي اللي قصه الدجين هي وقتك قرآنك إنه رأي مغلى هي وحال الفسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وحاد ويديسان كو وحقران هي سؤاشة هدي إذن وحبو إذنك إذن أغين وحباد إذن أغين آيادني وآياد آدي آد أحل ديروي معنى فربضان بي آيادني أي لا ضحي ووامحي وحي علماء كو إجماعين أن كو جرين شخص علماء كميدو ككلاكو خلافي نيك عاميقا wax alla wuxuu garan haya aan jirin muxuu sameeynaya culimadiisu raacaya wax alla isagii wuxuu garanaya ma jiro culimadiisu raacaya ko hadalkan alla uu leeyahay bay yiraahdeen fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun waxa laga wadaa bimaana hadaydan waxba ogeyn daku wax og raaca su'aal bay yiraahdeen nin baa in dhabeelay wadam salaadii baa la gaaray salaada xagee rabaa inuu tukado xagga qiblada indhaha ma kala hayo qibladiina xaggan ka tahay in xaggan ka tahay midna ma ogo balaalka u fiirsada muxuu sameeynaya marka ninkaasi ma wuxuu oranayaa ana ijtihaadayo oo waxaan rabaan sameeynaa dhinacan rabaan u sii jeesanaya waata qiblada Allah gormay oranaya culimadu waxay ku ijmaaceen ninka indhoolka ah ee aan waxba arag waajib inay ku tahay qofka indhaha qaba inuu qiblada weydiiyo salaad iskama gali karo hadduu iska gala salaada isagoo heli karo qof weydiiyo salaadaasi ma asaxayso lianna ilaahi wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala fawalli wajhaka shadra almasjid alharam walidalika saadarta culimadu waxay ku ijmaaceen waajib inay ninka ku tahay inuu taqliidsado marka isaga marka waxa ma arko waa dam nin dhoolad gacanta soo qabatay waxaad ku tiri qibladii xaggaasi ka jirtaa isagii ma ku oran karaa may qibladii xagga igama jirto cilmi uu kala wahayaana ma jirto ilaa waxyaabo badan wax lagu ogaan karaa واجب وحكوا دينا عاد وجهدي سينو قاطو لأن المسلمين تأصل كود وأمانة خايمين يهين معها ولذا قفك مسلم كان قفك المسلم كان بينه ما شيء لا يكذبه ولا يخذله والله نكاس واجب وحكوا مركي قبله وجرن وايو إنه ضدك وحرك يويديه أي واجب كوا صادرتت أي نكا عن عالم كاهين إن وحبك جرن هينين هدي سؤال ويديه حرام bay ka tahay su'aasha inuu ka jawaabo baabka baabul futya waa ka xidhan yahay ninka isaga ninka aan waxba garanaynin ee aan kitaabka alla garanaynin ee sunnadii nabiga aan garanaynin ee waxa la wuxuu garanayaa uu san jirin arinka isaga waa xanuunsan yahay qofkaasi qofka xanuunsan tabar meel marka wax ma qaban karaa waa maya waxa uu ka jawaabayo waa maxay waa diin waa wahyi waa kitaabullah iyo sunnatu rasuul hadduu ninkaasi iska fatwoodo nin ilaahay iyo rasuulkiisiiba beeniyay ayuu la mid yahay waajib waxa ku ninkaasi inuu ka joogsado lianna fatwadu waxay ku tacalluqdaa baabu tahlil wa tahrim shay la halaalaynayo iyo shay la xaaraantinimaynayo qadiyadaasina markaynu leenahay qofka aan wax alla wuxuu garanaya aan jirin masaladu mas'ala caama waxa jirta nin caamay ah oo wax alla wuxuu garanaya aan jirin laakiin hal mas'ala oo xaafid ku yahay ba jira talaba nin muslina ayaa inta loo yidhi waxa war ilaahay ma kaligiiba mise waa labo waa fatwa Soomaa wuxuu ku jawaabaya ninkaas aan waxba garan maayo culimada hal soo weydiiyo ma dhahaya ninkaasi abadan wuxuu dhahaya ilaahay waa kaligi qul huwa allah azadarta mujtahid kulka la kala qaaday wax loo kala qaadaa mujtahid almas'ala mujtahid muxuu ahay alwatan mujtahid mutlaq mujtahid muqayyad mujtahid alfanni ninku wuxuu ku ijtihaad mujtahid ku noqon karaa buuxa oo san waxba u baahnayn hal fanniya fanniya fara badan mujtahid mutlaq ku noqon karaa mar waa mujtahid mutlaq oo cidna isagu ma baahna kitaabkiisu la kala baxaya baabkiisu kala jaranaya sida aymadii waaweynada kale Imam Shaafici oo kale Ahmad bin Hanbal oo kaleeto Ibn Hazmi oo kaleeto
oo ninka ku tilmaamay baba taqliidku gaalnimada kale in waxba uusan ka duwanayn baba ninkaas isaga saa darteed ayaa qofku wuxuu ku noqon karaa murtad hal mas'alo wax kale ma taqaanid tawxiidka waxaad baratay laa ilaaha illa allah macnaheeda oo completely aad saytahay baad u baratay wax kasta nawaaqidkeed garanaysaa waajibaadkeeda baad garanaysaa wixii burinaya baad garanaysaa wixii laga reebo dhan baad garanaysaa ninka waxa la yiraahdaa عالم مسألة أما مجتهد مسألة يعني كلو يقارن نينكاس ما فتوان كرم سام فتوان كرو صح صدق أي وحكس تقد أكتهي وتفتوان كرتا لكن واحد نقول ما فتوان كرتا ما فتوان كرتا لا مسألة مركز الله وضع غلط نينا وحبة أجين الله الله وحو جرن هيا بأنجرين باشا فتوان هنا جايب كأنه يقول ترتا قاع يويدي سكتورة وغلط وهكذا تو غلط ان انتو مساله غرانهاyo oo la weydiinayo culimada ka jawaabi karta anu kama jawaabi karo kaasina waa qaldan yahay laana wixii uu garanay ilaahay wuxuu fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun fiiri nahyu wa amru ba beesha ku jira goorta qofka wax weydiin lagu waa maxay waa hadaadan adigu aad waxba garan laakiin adu hadaad garanaysa ka waran hadaad wixii garanaysa miyaa lagu oranayaa qofka weydii waa maya walidaalika saadarteed fatwadu waxay ku jirtaa masaa'ilka sharciga islaamka ugu adag bay ku jirtaa ugu adag culimadii rabbaaniyiinta ahayd ee cilmiga lahayd su'aasha markii la weydiiyo ma garanhayo cilmi inay tahay u yaqiinin cilmi inay tahay bidabd waana cilmi ma garanhayo shaygan su'aal hadii la weydiiyo tiraado anigu ma garanhayo ma ceebba rakafi ama waxba ma garan waayo qalad xitaa inta fatwadeen ba qalad u fatwadeen bal asxaabtii nabi axmed dib ugu laabto marka ka cilmi badnaa adduunyada soo marahaya ورجي القرآن كبركوا سود جاي جوجي ورجي لم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله مركز سود بتاع عبد الله بن مسعود يقولكوا الله نلا عنانتين نلا دجال الله صدق سنة بكم سوى يجيب برعاية داخلك نقول ولا ليه يسابق قلبي نوجي العواي رجي الساعة القرآن كذا أفان سنة بقضيات فربضان أو واحد على فتوى أي بركوت فتوى ولا فتوى غلطة مثلا نبى مالين داوع عن نبر كويلي وجنوبي صلاة الصبح حلق جاري rag asxaabtii kamida waliba rag waaweyn intuu u yimid ayaa wuxuu yiri war ruqsad la heli kara ma gabagabeysan kara haba ka yaabin baa leeyahay waa qabow biyaha ku qabayso wabillahi tawfiiq biiba asxaabiga isku shubay boogta fakata ka uu dhintay nabiga loo sheegay sallallahu alayhi wasallam wajiga gudubta rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qataluhu qatalahum allah way dileen allah hadilay rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam jahligu waa xanuun kana dawadiisu waa su'aasha maxay ii weydiin waayeen rasuulku sallallahu alayhi wasallam maxay ii weydiin waayeen bal fiirso maxay ii weydiin waayeen asxaabiga waxa ku filaa kaliya ciid inta isticmaasho billahi tawfiiq saa kutub biyaha ismarininba biyaha asalki ma la waayaha laysa alaykum fi diini min haraj asxaabi kaleeto waad ogtiin qadiyadii gogol dhaafka nin dhalinyaraha guri buu nin buu shaqeynayay reerkiisii uu gogol dhaafay gabadhii baa ureysatay qadiyadii baa asxaab waliba waaweyn buu weydiiyey waxa ninkan kadeeto waa la dilaya waa ninka dhalinyarada wani waligi waxba guursanin boqol aadi ana waad bixinaysaa wiilkana waa la eryahayaa qadiyadii baa nabiga loo sheegay sallallahu alayhi wasallam unays buu u soo diray rasuulku waaga barigiisa wuxuu yiri xoolihii oo dhan horta la soo celiyo kow arigaagi ninka dhalay wuxuu yiri horta arigaagi waa lagu celinhayaa jaariyadaadiina waa lagu celinhayaa wiilkaaga dhagax lagu dili maaye boqol uloodna waa lagu dhufan xogaana dhulka waa laga caydinhayaa ama ninkan kadeeta naagtiisa way wax la dilahayo unaysaw intaad ku kalahda waaga barigiisa haday qirata dhagax ku soo dil way qirata dhagax ku soo dilay maxaa markoo laakiin lagu dili lahaa fatwaadana asxaabta barkood wiilka yar dhalinyarada walidaalika saadarteed mas'alada hadaadan garanaynin anigu ma garanhayo dheh ceeb ma aha qalad ma aha waa cilmi mas'alada garan inaad ka istaagto laakiin mas'alada garan intii la weydiin inaad ku dhufato oo ilaahay subhanahu wa ta'ala sidii in aad rabbi taad waxana aad xalaaleynayso waxana aad xarimayso bimaana mas'aladaasi waa qayb tawxiidka kamid ah weeyaan taxliilka tahriimka yaa iskale الله با اسكاله سبحانه وتعالى الله با اسكاله إلهي مركب وحوري فسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون طعام وما جعلناهم منا كيل جسدا جسد لا يأكلون طعام عنتدا عنين ضمير كان وما جعلناهم وحو أن قنيا أنبياء إلهي أنبياء سمير وبشر إذنك وكلاتا إلهي وحو إليه سبحانه وتعالى ولقنا وبشر منا كيل بولي أن عنتدا عنين وما كانوا خالدين من أين ولقت كوا وراهين
ayuu rabbi subxaana wa tacaala suurat alfurqaan waxaan ku gaadhaynaa iyagoo leh maa lihada rasuuli ya'kulu طacaam waa maxay ninkan kadeeta rasuulka ee cuntada cunahaya ayaan ku gaadhi doonaa wamaa jacalnaahu maanan ka yeelin jasadan jasado laa yaakuluuna aan cunina طacaama cuntada wamaa kaanuu mana aynan ahaanin khaalidiina kuwa waarahaya ambiyadu uma intaa dabadeed sadaqnaahum waxaanu u rumaynay ambiyadii alwacda yabohi baan u rumaynay ballankii aan ambiyada la galay oo inaa lanansuru rusulanaa aha waanu u gudnay buu rabbi subxaana wa tacaala uu leeyahay faanjaynaahum waan badbaadinay hum oo ambiyadii ah iyo waman nashaau qofkaan doonno kuwii mu'miniinta ahaa ee ambiyada rumeeyey kuwaana waanu badbaadinay buu rabbi subxana wa tacaala uu leeyahay wa ahlaknaa waxaan halaagnay almusrifiina kuwii xadgudbay ee ambiyada ilaahay beeniyey kuwaana waanu halaagnay buu rabbi subxaana wa tacaala uu leeyahay ugu dambaystii alla wuxuu yihi laqad xaqiiqe eh soo qur-aanku mayna odhanin waa shicir soo mayna waa asaatiir alawaliin waa been soo maynan odhanin laqad xaqiiqe e anzalnaa waxaan soo dejinay ilaykum idinka waxaan idinku soo dejinay kitaaban kitaab baan idinku soo dejinay kitaabkaasoo fiihi dhexdiisa dikrukum sharaftiina ay ku sugan tahay axsanu tafsir waa sharafukum sharaftiina ay ku sugan tahaye afalaa tacqiluuna war miyaydaan caaqli lahayn buu rabbi subxaana wa tacaala uu leeyahay ilahay wuxuu leeyahay waxaan idinku soo dejinay xaqiiqa ahaan oon shaki ku jirin kitaabkaa samadu alla ka soo dejiyey rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay kitaabka waxaa dhexdiisa ah sharaftiina kitaabka dhexdiisa ah miyaydaan caqli lahayn oo miyaydaan wax garanayn rabbi subxana wa tacaala uu leeyahay bimacnaa kitaabku sharaftiina seebuu ku yahay nebigu naftu markii ka dhacaysay rasuulku wuxuu dardaaray muxuu ahaa waxaan idinkaga tegay laba shay haddaad qabsataan aniga gadaashay weligiin aydan dhumayn oo waa maxay kitaab ullahi iyo sunatu rasuuli llahi sala allahu alay slam waa wactasimu bixabli illahi jamiican liyukhrijakum min adulumaati ila nuur kitaabkan ilahi subxana wa tacaala wuxuu ihi kitaabkan idinka sharaftiina ayaa ku sugan dikrukum bimacnaa kitaabka luqadoodii yaa lagu soo dejiyey quraysh rasuulka lagu soo dejiyey waa idinka waa luqadiini waad fahmaysaan bimacnaa macnaha waxaa laga wadaa ummadda islaamka o dhan baa hadalkan u dhacaya kitaabkan sharaftiina ayaa ku sugan daliil waxaa khayru daliil yidhahdaa wixii baratig ahaan loo arko ummadani kitaabka mahma ay qabsato sharaf bay yeelataa cadowgeeda ka adkaataa ummadaha iyada u talisa laakiin ummaddu mar walbo ay kitaabkeeda ka tagto oo ay cadowgeeda raacdo oo ay sharcigii islaamkii alle u soo dejiye ay ka tagto dhulkoodana waa la qabsadaa cirdigoodana waa la dildilaaciyaa lugta hoosteedana waa la geliyaa waana la guumaystaa liannahu ilahay muxuu lehy subxana wa tacaala kitaab waxaanu idinku soo dejinay sharaftiinu ay ku sugan tahay sharaftaasi waa xisi adduunyada haddii la fiiriyo quwadiina iyo sharaftiina ku jirta macnawi way tahay oo cadaabkii dulliga ahaa ee aakhiro ayaad kaga badbaadaysaan qur-aanku waa akhlaaq oo wuxuu idin hogaaminayaa akhlaaqda iyo sharafta wanaagsan ayuu qur-aankani u idin hogaaminayaa oo diinkiina iyo axkaamta sharcigiina oo dhan ayaa ku sugan thawaabkii iyo ciqaabtii ayaa wax walba la idinkaga sheekeeyey ayuu rabbi subxaana wa tacaala mujaahid wuxuu aayaddan ku fasiray fiihi dikrukum xadiiukum buuri bimacnaa waa mid idin waramaya waxaa culimada barhkoodna yidhahdaan makaarimu akhlaaqikum baa kitaabkan ku jira makaarimu akhlaaqikum kitaabku wuxuu amray oo dhan waa wada makaarim alakhlaaq walidalika aayaddaasi waa aayad macno weyn leh kitaab baan idinku soo dejinay fiihi dikrukum afalaa tacqiluun ayuu rabbi subxaana wa tacaala u leeyahay wallahu subxaana wa tacaala aclam